Asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal. Maantayto waxaan ka hadlaynaa sheeko yar oo aad u xiiso badan oo ku saabsan gabar ardayad ah. Sheekadu sidatan ayay ku bilaabmaysaa. My father, aabahay, is a doctor. Aabahay waa nin dhakhtar ah. He works wuxuu ka shaqeeyaa in a hospital for children in Paris. Wuxuu ka shaqeeyaa isbitaalka carruurta ee Paris. He works very hard. Wuxuu u shaqeeyaa si aad ayuu u shaqeeyaa. But laakiin he loves wuxuu jecel yahay his job shaqadiisa. Laakiin shaqadiisa aad buu u jecel yahay. He is a very kind person. Aabahay waa qof aad u naxariis badan. I miss him waan u xiisay a lot in badan. Because maxaa yeelay I live in England. Anigu waxaan ku noolahay England. Ayadu waxay ku nooshahay gabadha England. Aabaheedna wuxuu ku nool yahay Paris. Marka waxay tiri I miss him a lot. Waxaan lumiyay in badan. Because maxaa yeelay I live waxaan ku noolahay in England. But laakiin when he comes home markii uu yimaado guriga he always brings me wuxuu ii keenaa inta badan something nice shay aad u fiican. I love waan jeclahay my grandmother ayeeday very much si aad ayaan u jeclahay. She doesn't get angry ayadu igama xanaaqdo with me aniga like my parents sida waalidiintay do sometimes mararka qaarkood sida ay sameeyaan. Yacni waalidiinteed ayaa mararka qaarkood ku xanaaqa. Marka waxay tiri ayeeday iguma xanaaqdo sida ay mararka qaarkood ay igu xanaaqaan waalidiintay. Yacni hooyadeed iyo aabeed ayuu la jeedaa. And she always wants to listen. Markastana way dhegeysataa to what she always listen to. Markasta way dhegeysataa what I say waxaan dhaho. Markastana way dhegeysataa waxaan dhaho oo macnihii hadalkayga way maqashaa. Badanaa carruurtu waxay jecel yihiin dadka dhegeysta ama dadka marka ka weyn inay dhegeystaan ay aad u jecel yihiin. She is 74 years old. Ayadu waa 70 sano jir. And lives with my auntie. Waxayna la nooshahay eedaday ama habaryartay an uncle abtigay ama adeerkay. Badanaa Ingiriisku wuxuu u adeegsadaa auntie eedo ama habaryar halka uncle-na uu u adeegsado abti ama adeer. In the same town isku magaalo as me aniga. Yacni ayeeday waxaan ku noolahay isku magaalo. Magaalada aan ku noolahay ay igula nooshahay oo England ah. I see her every weekend. Waxaan arkaa usbuuc kasta dhamaadkiis ayeeyo waan arkaa.